intaan noolahay waan rajeynayaa dadku waxay u dhinteen inay u caddahay oo dhiigooga loo daadiyey insha Allah in midnimadii Soomaaliyeedba halka ay ka soo bixi doonto kana dhalan doonto waana aaminsanahay kale waa inay sawaran tahay iyadoo hawsha ma dhicin inaan arki doono insha Allah intaan noolahay maamul ay leeyihiin dhulbaahanta Habar Yoonis iyo Warsangeli iyo inta kale la degtay iyo Fuqoshiniba waa riyo maalmeed aan suuragal ahayn aragtida ah in mar kale Hargeysa looga arrimiyo reer Laascaanood oo way xijaabatay rajo kasta oo dhulka SSC ka sii mid dhigaysay Somaliland kadib xasuuqii gardarrada ahaa ee nidaamka Cornel Biixi ka geystay halkani Garaad Mukhtaar Garaad Cali oo si kooban ula hadlayay Bakayle Media ayaa sheegay in haddii ay Somaliland ciidamadeeda wada hadal kula baxdo iyo haddii SSC cudud ciidan ku saarto labadaba marnaba aanay ka madax dhaqameed ahaan ka tanaasuleynin aragtidii dhiigga dadkiisu ku daatay ee midnimada Jamhuuriyadda Soomaaliya ugu horreyn Garaad Mukhtaar waxaan weydiiyay Garaad Mukhtaar Garaad Cali aad baad ugu mahadsantahay waqtigaaga qaaliga ah inaad fursad noo siiso inaanu dhibaabaha jira iyo waaqac wax ka weydiino waa kaaga mahad celinaynaa Garaad marka hore ugu horreyn Garaad soo dhawow xasuuq baa dhacay dambiye dagaal baa Somaliland Laascaanood ka geysatay maalinta ka dambaysa waxa soo baxaya khasaarihii duqeymaha axmaqnimada ah ee nidaamkaasi geystay si guud inkastoo dhibku guri kasta gaadhay bal ka waran dhaawacyadii dagaalka iyo dadkii ku barakacay maxamed waa ku salaamaya adiga iyo intayna dhageysanaysa ama muuqaalkan daawanaysaba meel ay joogtaanba waa salaan kadib waa sax waa run dhibaato weyn baa meesha ka dhacday runtiina dad badan ku keentay xusuus hore oo waddanka hore uga dhacday inay dib mar labaad usoo xasuustaan taasoo marna aan la filayn in mar labaad taariikhdii hore usoo dhacday 88 iyo tii 90 oo ka dhacday xagga koonfurba in haddana mar kaleeto kusoo noqonayso waddanka gay kale oo ka mid ah Soomaaliya taasoo runtii la islaa caqabado badan baynu ka baranay kale hadda dhacday qadarta Ilaahayna waa meesheeda oo waa qoran tahay oo taa markasta raalli waa lagu yahay laakiin kale waa mid kale ina geli doonto xusuusta insha Allah Ilaahayna ka rajeynaya inaysan mar kale ummad kale Soomaaliyeed iyo mid kale muslimaba aysan ku dhicin تعديات فربضن بكرة دad فربضن waa ku dhinteen dad badan waa ku dhaawacmeen oo hadda kolay kor u dhaafay 1,118 inay yihiin baan jecelahay marka lagu daro labadii shalay dhaawacmay maanta weli ma hubo dhaawac wuxuu yahay oo weli riboodkii warbixinta dhaawac ma soo bixin laakiin se insha Allah kolay dadkan Ilaahay ha u boogadhayo intii ku dhamatana Ilaahay ha u naxariisto inagana Ilaahay naga qaboojiyo shidada tan socota inta ku barakacdayna runtii aad bay u fara badan yihiin oo gaaray meelo fara badan dadka lagu qiyaasaa 280,000 inay yihiin laakiin dadkaas waa marka la tirin kaliya magaalada Laascaanood intii ka soo barakacday laakiin marka la fiiriyo deegaanadii nawaaxigeeda ahaa ama kaagdho dhawaa kuwa iyagana ay saameysay ka barakacay tiradu waa ka badanaysaa laguna qiyaasi karayaa runtii inay ilaa 500 hadaysan kor u dhaafan inay noqon karto dadkana runtii kolay daday arrin nasiib iska qabsatay haddana laga yaabo inay insha Allah kolay faraj Ilaahay u furo waa rajeynaynaa maadaama bishii Ramadaan soo socoto iyagoo guryahoodii ka barakacay ka tagay meel kale jooga ku dhibaataysan Ramadaan soo gasho waa waxyaalaha runtii aan isleenahay waa adag tahay marka faraj Ilaahay baan ka rajeynaynaa inuu Ilaahay intaas ka horeysa bal iyaga nabad ku soo celiyo deegaanadoodii bal kolay ku soo laabtaan wixii u haray ama dad badan guryahoodii waa ka dumeen laakiin inta kale guryahoodii u bad qabaan inay adliis noqdaan ay guryahoodii ku soo laabtaan ay ku soomaan bisha Ramadaan Garaad midnimo Soomaaliyeed baa dadka ugu godgalay oo lagu dilay sida ku cad taariikhda duulaan kasto kan la midana cid dirita gardarrada soo qaada way guul dareysataa Somaliland Laascaanood laga saar go'aacada lagu ururiyay nidaamkaasi markuu baxo oo gobolka ka baxo ama dagaal ha ku baxo ama wada hadal ba ha ku baxo miyaa gurgurtan ka galeysaan hilowgii Soomaalinimo ee 30 sano kadib dadka ugu dhinteen may taas ma suurtagal karta maaha xitaa maskaxda inay kaaga soo dhacdo ayaa laftigeeda adagba waaydee waxba qoyan dhiigii intii shalay lagu dilay
maxaad calankaas Soomaaliyeed u qaadatay oo kamid ahaa yarkii Cabdiweli oo shahaadada aan hal dambi sameeyay kaliya uu sameeyay calanka Soomaaliyeed intuu qaatay taalada la fuulay qof ma aflagaadeyn qof ma dilin dambi kale ma gelin laakiin intaas uu naf waayay marka maanta in aan meel kale aan si gaarin in maanta la yiraahdo gogorta kale la galaya marka de wiilkaas dhigiisi waxa weeye dhig aan ku salaysnayn macne inuu dhintay marka insha Allah kulay inta noolahay waan rajeenayaa dadku waxay u dhinteen inay u cadahay oo dhigiga loo daadiyay macnaheedu ma sameynayso maanta intaas ha u dhintaan dad 200 ku dhow kun iyo googan ay u dhaawacmaan intaasna u barakacdo wixii intaas ugu dhacday loogu sameeyayna bilcakiskeedii sameeyo oo berito gorgorta kale la gala sababtii iyaga lagu dilay oo ahayd Soomaaliland noqoshadeeda ama go'itaanka ay ka go'ayaan Soomaaliya inteeda kale watahay garad wax badan oo deegaan iyo wada dhalashaaba dadka reer SSC iyo dadka deegaanada la dega ka dhaxeeya haddaan si gaar ah u tilmaamo dhulbahante habar jecelo iyo garxajis garad wiilka cirgaaba jooga iyo kan caynaba jooga iyo kalaas canood jooga mustaqbalka SSC isku si wax ma ugu yeelanayaan mase aan kula kaftamay dhowr iyo 30 sano kadib sidii nidaamka Soomaaliland beesha dhexe sibay saaq ay isu leekaysiiyeen ba waa markiini noqon mayso insha Allah bidni kariin kolay wax kasta waxa fiican khalad kasta ummadda Soomaaliya soo gashay in laga faa'iideysto kan tan ku soo laabtay su'aashaada inta wiilka laas caanood dadkan isku deegaanka ah oo Ilaahay isku saaray markay isku deegaan ay isku yimaadaan iyagu inay wax wada leeyihiin Ilaahayna isbaday xoolahoodu maanta wada daaqayaan iyadoo xabadaasi dhacaysa hadana kuwa kale geesta isku baahaysanayaan oo is caawinayaan oo xoolahoodii wada daaqayaan dad meel kale tagi karaya maaha haddii markaa tan siyaasadda ama xasiloonida siyaasadda ay u fadhiisato oo kolley anu aan jecelahay in dadkan inta isxigtaaba isoo xigtaaba sida isu xigaan ay wax u samaystaan aan la isku caburin inay kaga hormarnaan karto kagana wacnaan karto sidii horeba loo sameyn jiray oo ahayd in xabad caaradeed wax la isugu dul yeedhiyo insha Allah taas hadda ka dhici mayso wiilka habar jecelo iyo ka habar Yoonis iyo ka dhulbahante iyo ka fiqishini waa kuwa maanta aan jecelayn wax wada yeeshaan insha Allah waan rajeenayaa haddii meesha tan ay ka soo baxdo marka laga soo jeesto qadiyada maanta socota ama xabadu ay istaagto in fadhiga noogu xiga uu noqonayo dadka deegaanka kan waliba afarta gobol ama labada gobol ka soo jeeda ama saddexda gobol inay isku yimaadaan iyagoo shar caafimaad qaba ay wada tashaan isla markaana aan rajeenayo insha Allah in midnimadii Soomaaliyeedba halka ay ka soo bixi doonto kala dhalan doonto waana aaminsanahay kolay waa inay sawaran tahay iyadoo hawshan ma dhicin inaan arki doono insha Allah inta noolahay maamul ay leeyihiin dhulbahante iyo habar jecelo iyo habar Yoonis iyo warsangeli iyo inta kale la degtay iyo fuqashiniba oo ku wada manasoobanayaan taasoo ku tusinaysa inaan reer caabin karin qabiilna qabiil ku caabin karin waxa wax wadayaashanay yihiin dad Soomaalinimada isku keentay ninkastana abtirsiintiisu meel gasho taasina aysan meel gelin kala gelin karaan ku yeelan karayno wax kale ka weyn oo aad moodo runtii maanta meesha kaliya ka jiri kartaa Soomaaliya inay noqonayso meeshaas marka aad baan taa ugu hamiyayaa una arkaa inay suurtagal u tahay waa marka la iska saaro caadifnimada qabaa'ilnimo ee dadkan loo soo dhexgeliyay si nin kale wax ugu samaysto dhowr iyo 30 sano Soomaaliland ictiraaf waxay dunida kaga doonaysay dambiye dagaal oo nidaamkiisii aad bare laga tirsanayay rubuc qarni kadib kii mid la mid ah dhacay dunida faylka hore u haysay markaad la kulanto maadaama danayaasha caalamka iyo safiirada beesha caalamka iyo qoliyo noocaas ay sarkaysay sawir noocee ka haystaan wallahi way jirtaa in aad iyo aad loogu naxariisan jiray looguna ictiraafi jiray tacdiyaadkii faraha badnaa ay ka sheegan jireen oo hadda ugu dambeysay ka warhaysid Cornel Tuke oo hadda ku xiran wadanka Mareykanka laguna eedeeyay xasuuq uu ka geystay Hargeysa iyo Gabiley isagoo la soo bandhigo lafa iyo dad la laayay oo lagu eedeynayo iyadoo kastoo cadimeeda lahayn laakiinse kolay maanta taala waxa weeye unta shalay ay sheeganayeen in loo geystay in maanta iyagii ay hayaan dubaha midada caaladeedii oo iyagii geysanayaan marka taas waxay soo wada afjaraysaa runtii ay soo dhamaystirtay waxa la wixii dadkani ay sheegi jireen inay ku meel tagaan waxaan u malayaa Shabeelle oo kamid ah siyaasiyiinta xagga ka soo jeeda
ayaaba si fiican u sheegay mar oo lahaa muuse diyaaradiina waa dumiyey lafihii aynu sheegin jirnayna isagaa daadiyey waa marka xuquuq badan oo dadkani ay sheegan jireen run ahaato ama been ahaato wejiga taasi waa another case caddeynteedu laakiinse afka soo mari jiray maanta xitaa afka inay soo marto uma suurtogeliso maadaama iyaga intii in lamid ah haddaysan ka darnaynba oo qoyan oo hadda sawiradeedii wata awal waagaa sawiro badan may jirin oo looma ogolaynba sawirada waagaa in la sawiro anigu waxaan ahaa ardayda kusoo barbaartay Hargeysa dhagax tuuro fara badan baan qorsheeyay oo runtii dee ardaydun baa mar kastaba dhalinyarada sida kuwanba hadda ay uga kacday jabaahiirtu ayaan laftiga waxaan ahaa jabaahiirta ee sanamta back in the day marka dee waagaa sawiro iyo kaamarooyin maanaan haysan laakiinse maanta dee tusay taabsi weeye marka waxyaalihii la sheegi jiray hadda iyada iyo maqaala sawira ayaa la helayaa marka way ku adkaanaysaa in maanta doodaas ay socoto oo ah waxa la lagu sameeyay waltaad ka samaysaa ka daran marka taas waa u dhamaatay ma sha Allah